wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan gebi ahaantii waxaynu ku soo qaadi doonaa warbixino goosgoos ah oo ku saabsan koobka adduunka. koobka adduunka ee sanadkan lagu qabanayo waddanka Qatar ayaa saacado yar uun kadib laga baasan doonaa dalkaasi Qatar, waana markii ugu horeysay ee lagu qabto dhacdada mundiyaalka adduunka bariga dhexe. dalka muslimka ah ee Qatar ayaa martigelinaya koobkan oo sanadkan markaasi u sameeyay 8 garoon oo kala duwan oo markaasi lagu qaban doono koobka adduunka laguna ciyaari doono. waxaan muuqaalkan diiradda ku saareynaa saacado yar uun kadib maadaama la ciyaarayo ama la baasanayo koobka adduunka waa sidee xaaladda dalka Qatar. magaalooyin kala duwan ayaa muuqaal markaasi ka soo ururiyey saaxiibkay Cumar Inshaar oo markaasi aynu idinla wadaagaynaa. muuqaalkan oo maanta la duubay ayaa muujinaya sida xaddaafka ah ee loo soo buuxiyey waddanka Qatar, iyadoo taageerayaal kala duwan oo sita calamo iyo astaamo markaasi ay ku taageerayaan taageerana ugu muujinayaan xulkooda, iyagoo markaasi sita socod ku maraya waddooyinka dalka Qatar. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in heegan sare la geliyey ciidamada ammaanka ee waddanka Qatar. xitaa waxaa la arkayaa waaxda nadaafadda oo markaasi nadiifinaya waddooyinka ay taageerayaasha kumanaanka kun ah ee markaa dabaaldegaya ay socodka ku marayaan. waxyaabaha kale oo cajiibka ah waxaa ka mid ah in taageerayaashu ay qaarkood markaasi sitaan turumbooyin ay markaa ku yeerinayaan waddooyinka, isla markaana ay ugu diyaargaroobayaan inay xulkooda ku taageeraan. qaarkood ayaa halkaasi heeso iyo nashiidooyin ka qaadaya oo taageerayaasha ah. qaarkood nashiidooyin ayay camirteen waddooyinka, kuwo kalena waxa ay markaasi qaadayaan heeso. sidaasoo ay tahay, maalinta berri ah oo axad ah ayaa markaa koobka adduunka laga baasanayaa waddanka Qatar, waxaana kulanka ugu horeeya markaa wada ciyaari doona dalka martigelinaya koobkan ee la yidhaahdo Qatar, iyagoo la ciyaari doona waddanka Ecuador. haddaba warbixinada aynu soo gudbinayno waxaa markaasi qayb ka ah dowladda Qatar ee markaa beri la ballansan Ecuador. waxaa la soo warinayaa in ay markaa laaluush siiyeen qaar ka mid ah xidigaha xulka qaranka Ecuador. warbixinadu waxay sheegayaan in 8 ka mid ah 11 ciyaaryahan ee loo malaynayo inay safka hore ugu soo bilaaban doonaan xulka qaranka Ecuador ay markaasi laaluush siiyeen Qatar. Qatar waxay doonaysaa inay guul ku furtaan koobka adduunka, sidaas darteedna 8 ka mid ah xidigaha ugu firfircoon oo line upka lagu soo bilaabi kara ee Ecuador ayaa leeyahay lacaga aad u fara badan ayaa loo ballan qaaday si markaasi qaybta dambe gool iyo eber looga adkaado sida warbixinadu ay sheegayaan. laakiin waynu arki doonaa, bal baaritaan ayayna markaas samayn doontaa FIFA. waxa ay ka tiraahdaa arrintanna waa la eegi doonaa, laakiin suuragal ma aha in lacag aad ku doorato dalkaaga 8 ciyaaryahan. suuragal ma aha inay markaasi ku doortaan dalkooda guul ay siin karaan laaluush ay ka qaadanayaan waddanka Qatar, laakiin wax waliba ayaa ka dhici kara. tani waa kubadda cagta. waxyaabaha kale ee markaasi la xiriira koobka adduunka waxaa markaasi qayb ka ah dowladda Qatar waxay markaasi shaacisay shalay toole in garoomadeeda aan lagu dhex cabi karin laguna dhex iibin karin koobka adduunka inta uu socdo khamriga ayay mamnuuceen oo waxay leeyihiin mana lagu iibin karo garoomada dhexdooda, mana lagu cabi karo inta uu soconayo koobka adduunka garoomada ay taageerayaashu soo buuxinayaan oo lagu dheelaayo. sheekooyinka kale ee la xiriira koobka adduunka oo markaas saacado yar uun kadib laga baasan doono dalka Qatar waxaa markaasi ka mid ah koobka adduunka sanadkan waxaa ka maqan weerarkii Liverpool ee cajiibka ahaa ee MSF la yiraahdo, waa Mane, Salah iyo Firmino, laakiin saddexduba siyaabo kala duwan ayay ku seegayaan koobka adduunka. Mohamed Salah dalkiisa masaaridu uma soo bixin dhacdada koobka adduunka ee sanadkan 2022. Firmino waxaa laga reebay koobka adduunka oo lama soo xulan oo xulka qaranka Brazil waxay u muuqataa inuu ka maarmay, halka Sadio Mane uu xulkiisa qaranka Senegal uga maqan yahay dhaawac markaasi ku qasbay inuu ka sii mid ahaan waayaba koobka adduunka ee sanadkan. waxaana la shaaciyey in gebi ahaanba uu seegi doono Mane koobka adduunka sanadkan. sheekooyinka kale ee markaa la xiriira koobka adduunka haddii aan ku sii soconnana,
Lionel Messi waxaa laga waayay tababarkii ugu dambeeyay ee xidigaha xulka qaranka Argentina ay markaasi ku sameynayeen dalka Qatar, taasoo walwal ku abuurtay taageerayaasha xulka qaranka Argentina. wariyaal ka badan 400 oo ruux oo markaa doonaya inay la kulmaan Lionel Messi isla markaana muuqaalo iyo sawirro ka soo gudbiyaan kabtanka xulka qaranka Argentina ayaa niyad jabay markii ay Messi ka waayeen xerada tababarka xulka qaranka Argentina ee wadanka Qatar. laakiin waxaa la soo warinayaa in haatan uusan walwal badani jirin isla markaana Messi uu tababarka xulkiisa qaranka Argentina ku seegay maadaama uu xoogga saarayo qaybta jirdhiska ee gymka. maanta waxa uu markaa ku maqnaaba leeyahay oo tababarka xulka uusan ula qaadan qolka gymka ayuu biraha markaasi garaacayay oo jirkiisa ayuu dhanka gymka markaasi aadiyay oo uu xoogga saarayay. xulka qaranka Argentina jiil dahabi ayay wataan sanadkan, waxaana la leeyahay waxa uu ka mid yahay xulalka ugu cadcad in uu markaa ku guuleysto koobka adduunka. Messi waxa uu doonayaa in markiisii shanaad oo uu safanayo koobka adduunka uu markii ugu horeysay gacanta ku dhigo mondiyaalka adduunka oo uu ku guuleysto. xulka qaranka Argentina haatan 36 kulan waa guuldaro la'aan oo ambeetin dhinacooda dhulka lama dhigin, waxaana ay laba u jiraan in ay barbareeyaan kuwii ugu ambeetinka dheeraa ee xulka qaranka Talyaaniga. haddii 3 kulan aan laga adkaanin xulka qaranka Argentina waxay dhaafi doonaan dhigooda Talyaaniga iyagoo noqon doona xulka ugu ambeetinka dheer. koobkan adduunka ee lagu qabanayo wadanka Qatar waa midkii lacagaha ugu badnaa abid lagu bixiyay koob adduun intii markaasi la soo martigelinayay, waxaana dowladda Qatar kaga baxday 220 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo lacagtu weli la leeyahay sare ayay u sii kici kartaa. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah in xidigahu ay markaasi yaaban yihiin, waa xidigaha xulalkooda markaasi kala qaybgalaya koobka adduunka, isla markaana waxaa markaasi la arkayay xidigaha qaarkood oo xeebaha markaasi tegaya, qaarkood waxaa la dejiyay hoteelo aad markaasi loo qalabeeyay, iyadoo Lionel Messi iyo xulkiisa la dejiyay min ciyaaryahan iyo qol hoteela la dejiyay. awalkii hore maxaa la yiraahdaa hoteelada waxay ahaan jireen in 3 ilaa 2 lagu wada seexdo, laakiin ciyaaryahan kasta iyo magaciisa ayaa lagu diyaariyay qol ayaa markaa albaabkiisa loogu dhajiyay. Messi inta iskale, Lautaro Martinez iskale qolkan, qol walba ciyaaryahanka magaciisa lagu diyaariyay. Messi ayaa markaas aad u la yaabay. Cristiano Ronaldo markii uu isaguna ka soo degay wadanka Qatar, markii uu ka soo degay taageero aad u da'yar ayaa markaas la kulmay. Ronaldo sawirro la galay, taageerihii waaba kan isku ooynaya ilantuu cishan kari waayay. dad badan ayaa markaasi riyadooda ahayd inay la kulmaan xidiga ay jecel yihiin oo ay taageeraan ay u rumoobi doontaa sanadkan, maadaama dalka yar ee Qatar ay markaa xidigaha waaweyn inta badan xaadir ku yihiin. waxyaabaha kale ee cajiibka ah waxaa markaasi ka mid ah xulka qaranka England ayaa isagoo tababarka markaasi qaadanaya waxa ay kaamirooyinku soo qabteen in salaadii maghrib iyagoo markaa tababar ku qaadanaya xerada tababarka oo isku luleynaya waxaa hal mar yeeray aadaanka salaada maghrib ee xilliga wadanka Qatar. xilliga Qatar aadaanka salaada maghrib ama salaad walba markaasi ma kala dambeeyo oo hal waqti ayaa markaasi saacadu markay saas ugu dhacda la wada adimaa. marka iyagoo xulka qaranka 3 libaax ku jira tababarkoodii ugu dambeeyay oo ay isugu diyaarinayeen koobka adduunka ayaa hal mar aadaan u isqabsaday magaalada oo dhan. way yaabeen oo dhagahay taageen, waxay leeyihiin qaarkood waxaan cajiibka ah maxaa codkan la yaab kale, way la dhacsan yihiin, qaar way yaaban yihiin, way shoogsan yihiin. laakiin mar walba waxaan idin ogeysiinaynaa waxay tahay in dadkan reer galbeedka ah ay jecel yihiin wax ay dalkooda ku haystaan maahane dalalka kale wax dheeri ah inay kusoo arkaan oo cusub. marka aadaanka iyo maxaa la yiraahdaa salaadaha loo dareerayo iyo meelaha qadiimiga ah iyo maxaa la yiraahdaa wadanka Qatar meelaha qadiimiga ciyaartooydu iska jecel yihiin ay booqasho ku tagaan ama ay degaan. marka waxyaabo waxay raadinayaan ka duwan wixii ay arki jireen. marka xulka qaranka England waa ay la yaabeen, xulal kale ayaana yaabi doona maadaama adinka wadanka Qatar uusan kala dambeeynin oo hal mar lagu dhawaaqo. waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaare, intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno sidaas nabadgelyo.